magaalada Hargeysa mudooyinkii u dambeeyay waxa ku soo badanaya dadka la sirxayo Raxme Cabdi Maxamed oo arintaasi ku dhacday ayaan wax ka weydiiyay bal arintaasi iyo waliba sidii ay u qabsatay shaka ku bilaabantay markii hore guriga ayaan joogay darbeen meeri dibadana way timiday waxay ku tiri anigoo soo fadhiyo halka iga taabatay igu tiri habar yar waxaan ahay masaakiinad baahan marka maxaa igu caawin kartaa ka bacdigana waxaan ku cid weyn oo waalid ma joogto markaasan kuri cunto bay ku tiraan nooc wax cunto oo la cuno guriga ma yaala ma yaban kurkumaana samaysan saaka guriga quraac ka bacdigana waxay ku tiri waxaan ku baris qaylin hadaan ku siiyo ka waran waa caadi ugu tiri hay waan sii sufur baan soo daro waan u dhiibay kadibna dharkii iyo wixii baan u guray oo xaba garan gudo waqtigiiba waxaan garan waayay gooraliyo gooran bedelmay dharkii iyo wixii aan u guray oo waxaan ka jawaan ugu guray aniguna xijaab aan xidhay qoyan ana raacay kadibna noo halka taagnid noo hadi baan wada raacnay aniga iyadii iyo afarnin iyo xabad kale oo naaga marka kadibna saraacnay gurigay geeyeen gurigii markay geeyeen albaab qol kamid furay albaabkii qolkii ay fadhiyeen qolkana waxa jooga laba hablood oo kaanoona ku xidhan yahay kadibna ana way fadhiyeen dhiigana way ka qaadeen irbadna way ugu mudeen kadibna waan tagnay markaan tagnay waxaan maxay meel baan ugu dajiyeen marka halkan kaalinta ina gaafina koornaha la joogay igu dajiyeen iyo gabadhii waan yiraahdeen inta soo lugeeya soo lugeeyna intaan halkii lagu balansanaa intaan gaadhin ayaan miyuu meerkayga soo noqdaan wax kala gartay ka bacdigeedna waan ka baxsaday xaafad baan ka galay xaafadiiba dibadana anigana ay garatay aan ka isku sheegay kadibna xaafadii baan sidii ku joogay xaafadeedana igu timiday Cabdiraxmaan Maxamed Odawaa waxa uu ka soo jeedaa qoyska Raxma waxaanu isaguna iiga waramay arintani iyo markii ay maqleen waxay ay talaabo qaadeen waxaan tagnay saldhiga Koodbuur waxaan ku nil waraaq noo qor telefonta noogu qor inay noo fududeyso arinta GPRS ka si loogu haga mobilka dhacaya ee naataas gabadha yar oo qafaalatay teetana waxa dhacday in qoladii ay nagu dhahdeen CID da taga CID baan tagnay CID dina hadana booliska dib oo isku hay turtuureen runtii booliska waxay nagu soo dib noogu soo celiyeen Koodbuur waxay nagu dhahdeen Koodbuur tago halkaas oo arintii halka maraysa ayaa nasiib wanaag markay saacadu ahayd ilaa 2 duhurnimo ilaa 2 ruuc meelaha markay ayaa nala soo hadlay markaasuu yiri meydinka inaan tan dhalay anaga dhalay kaalay soo gaadhay waa halkay meeshu waxa weeyaan iskuulka amaana la yiraahdo galbeedka magaalada ku yaal controlka galbeedka magaalada koonihiisa shaqeyn la yiraahdo ina sheekh nuux ninkaas adeetana oo halka degan waanu tagnay wanagoo yaacayno ilaa tobneey gaariya oo dadkii xaafada eeridan deganaayo oo birmada markaanu tagnay inankii islaantii iyo inantii iyago gacanta ku hayaan ugu tagnay nasiib wanaag waanu tagnay deetana waxay tiri islaantana atribuud ana dhalay waa islaan afka reer xamar ku hadlaysa oo meemeeya imika waxay ku xidhan tahay CID da anagu waanu soo qaadnay inantii iyo islaantiiba waxaanu keenay CID dan toos ugu keenay xarunta CID da Hargeysa halkaas ay ku xidhan tahay gabadhii islaantii ku xidhan tahay inantiina waa tan way wareysteen beritoolna way waanu si anba qaadayna kiis bay ugu dhaad maanta waa jimce saasan ku kala nimid laakiin waxa weeyaan waa arin halisa arintani sidii anagu waxaan doonaynay CID da markii aan soo keenay waxaan wax dhacda cajiib ah in markiiba laga hawl galo oo macal gurigan inanta lagu baaray inantu waxay sheegtay gurigoodan in markii noohada halkan laga qaaday guri isla Koodbuurtanuna oo guri weyn oo bangalaa oo macal dad shay baadhistii ay joogan oo dhiiga qaadaya oo macal carruur kale ay joogan bay noo cadeysay imka wareysigeeda ka arkasan in arinta markii anagu CID da inanta saa ugu warantay naagta reer koonfureed ka shaqeeyay ay tahay inay isla markiiba dhaqdhaqaaq sameeyaan anagu dawladda waxaan isdhigay dawladdu wadinka faraaka soo galiyay wax dhaqdhaqaaq ilaa maanta jimcaha lama sameeyo waxba marka in arinta Soomaaliya oo ku soo noqnoqonaysay mudooyinkii u dambeeyay fariintaad waalidiin badan halkan dadka waxaan u dirayaa inay Hargeysa waa guriyo waaweyn oo fiilooyin oo cid garanay cid aan la garanayn in guriyaha waaweyn la kareynayo ee dadka laga kareynayo inaan garanayn in la iska wada baaro dadka jaarka oo qolo walba guriyaha waaweyn ee dadka laga kareynayo ay la socdaan xaaladda guriga ka jirta waxa hubaala oo say gabadhaas noo cadeysay in guri la geeyay gabadha oo lagu shay baaraya halka oo carruureen lagu haysto qaar kamid ah xataa ayayna taas cadeysay marka waxaan u soo gudbinayaa shacabka Soomaaliland in dadka la jaarka ee aan la garanay ay la socdaan oo xogta u soo gudbiyaan shacabka Soomaaliland ayaa arintani inta badan ka cawda waxaana shacabku sheegaan sida qoyskaniba hadda sheegay inay inta badan dacwadooda u gudbiyaan ciidamada bilayska kuwaasi oo aan iyaguna hore ugu soo jawaabin